salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo taxliilinta wararka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda caawa xiisadu aad ayay u kulushahay markaad fiiriso wararka waaweyn ee soo baxaya ee dunida ka taagan aan ku hormaro dhinaca gobolka bariga dhexe hogaamiyihii garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa hubaysan ee falastiiniyiinta ah ee xamaas ciisadiin al-xadaad ayaa lagu soo waramayaa in la qaarajiyey oo la dilay sidaasi waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo waliba wasiirkiisa dagaalka Katz waxa ay tilmaameen weerar ka dhacay gudaha magaalada dhibaatooyinka weyn mudatay ee Gaza ayaa la sheegay in ninkaasi lagu qaarajiyay sidee wax u dhaceen weerarkana sidee loo fuliyay waan kula wadaagi doonaa ciidamada Israel ayaa lagu soo waramayaa caawa heegan ka bedelan kii maalmihii hore in ay galeen iyadoo la sugayo amar ka iman kara madaxweynaha wadanka Mareykanka taas oo la leeyahay waxa suuragal ah in la bilaabo weerar cusub oo ka dhana wadanka Iran marinka hormusna dawladda Iran ayaa u dirtay maraakiib quusayaala oo gujisa halkaasi oo ay doonayaan inay amniga deegaankaasi badda ah ay ku aaniraade marinkaasi badda ah ay ku fara adeegaan asibaa la yiri aysan gacanta Mareykanka ugu dhicin halkaasina looga adkaan warba ka soo baxay taliyaha ciidamada badda ee dawladda Iran iyana warbixinta ayaan ku faaqidi doonaa iyo tabinteena caawa inta waxa raaci doona madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in maalmahan soo aadan uu booqasho ku gaaro magaalada Beijing ee caasimadda wadanka Shiinaha haddaba dawladda Shiinaha loolanka quwadaha ee soconaya ee u dhaxaya saddexda wadan ee waaweyn oo ay kala hogaamiyaan Putin, Trump iyo Xi Jinping ma ka celin kartaa inay ku dhacaan dagaalkii saddexaad ee adduunka waa maxay siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay ciyaarayso dawladdaasi Shiinaha warbixin gaara oo ay qorayaan warbaahinta Ruushka oo arrintan la fagur dheeraada ku sameynaya ayaan barnaamijka ku tabin doonaa khiyaarta ay nala socotay iyo wararkaasi iyo waliba xiisadii ugu dambeysay gobolka bariga dhexe oo arrimihii Lubnaan ay war ka soo baxayaan iyo wada hadalkii Washington ka socday intaaba waan ku sheegi doonaa soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara waa mahadsantiin ku horeeyo dhulka Falastiin war dhilale ayaa caawa ka soo baxaya waxaana la sheegayaa in la qaarajiyay hogaamiyihii garabka militariga ee kooxda Falastiiniyiinta u dagaalantay ee Xamaas ninkii la oranayay Ciisadiin al-Xadaad arrintan waxaa sheegay wasiirka dagaalka iyo waliba ra-iisul wasaaraha Israel oo labadaba shir jiraayad qabtay kadib howlgallo ka dhacay gudaha dhulka Falastiin gaar ahaan magaalada muddada dheer colaaduhu ay ku soo jirtay ee Gaza telefishinka Al Jazeera ayaa warinaya hadal uu ka xiganaya ra-iisul wasaaraha Israel iyo wasiirka difaaca kuwaasi oo ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyaha sare oo ka tirsan ahaana hogaamiyihii garabka militariga kooxda Falastiiniyiinta ee Xadaad kadib weerar cirka ah oo lagu qaaday guri dabaqa oo ku yaala xaafadda Al-Ramal ee magaaladaasi go'doonsanayd muddada dheer ka tirsan bayaan ay soo saareen labadan mas'uul ayaa lagu sheegay in howlgalka uu dhacay kadib weerar toosa oo ka yimid baaliri amar toosa oo ka yimid Netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka isla markaana uu qayb ka yahay weerarada militariga ee Israel ee ka wada baaliri gudaha magaaladaasi nidaamka Israel ayaa sidoo kale sheegay in Xadaad uu ka tirsanaa hoggaanka sare ee militariga ee garabka hubaysan ee Falastiiniyiinta isla markaana uu door weyn ku lahaa qorsheynta iyo howlaha fulinta dagaalka warbaahinta nidaamku waxay sidoo kale sheegayaan in weerarka la fuliyay ay geysteen diyaarado dagaal oo toos ah iyo kuwa iswada iyadoo sidoo kale la baltilmaameystay gaari lagu toonsanaa in loo adeegsanayay dhaqdhaqaaqa bartilmaameedkaasi dhinaca kale ila caafimaad iyo gurmadka degdega ee magaalada ayaa ku waramaya in weerarkaasi uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 10 kale kuwaas oo ay ku jireen dad rayada ciidamada Israa'iil iyo hay'adaha amniga gudaha ayaa labadaba ku dhawaaqay in ay sii wadayaan howlgalladan ilaa baa la yiri inta ay gacanta ku soo dhigayaan dadka lagu toonsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii dhacay bishii October ee sanadkii 2023 isla wararka gobolka bariga dhexe haddii aan sii eego
dowladda Iran ayaa caawa lagu soo waramayaa in maraakiib quusayaala oo gujis ah ay geysay marinka istiraatiijiga ee Hormuz si ay ugu faraadegtay gacan ku haynta marinkaasi oo gacanta Mareykanka aanay ugu dhacin sida ay ku waramayaanba ilaha wararka laga helayo. taliyaha ciidamada ee badda ee dowladda Iran ee ilaalada kacaanka ayaa ka hadlay isagoo ku sugan saldhigga weyn ee Bandar Abbas waxana uu yiri tallaabooyinka aynu qaadayno waxa ay guud ahaantiiba la xiriiraan xaqiijinta nabadgelyada biyahaasi iyo waliba dowladda Iran inaanay ka gorgortamin madaxbannaanideeda. ciidamada badda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa ku dhawaaqay in ay geeyeen maraakiib quusayaal ah nooca gaadir loo yaqaano marinka istiraatiijiga ee Hormuz xilli ay sii kordhaysa xiisadda militariga ee u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. taliyaha ciidamada badda ee Iran Admiral Shahram Irani ayaa sheegay in quusayaashan dowladda Iran ay farsamaysan loogu talagalay difaaca biyaha qaranka iyaga oo lagu naanaysa baa la yiri dolphinka gacanka Faris sida lagu qoray war ka soo baxay warbaahinta dowladda Iran. dhinaca kale warbixinada ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka oo ku jira telefishinka dhinaca dowladda waxagliya ee Fox News ayaa sheegay in quusayaashan ay awood u leeyihiin in ay qatar geliyaan maraakiibta ganacsiga iyagoo adeegsanaya baa la yiri miinooyinka badda hoosteeda la geliya. waxaana sidoo kale ay wataan gantaalo suuragal ay tahay in maraakiibta marinka gooshaya lagu weeraro. markabkan yiraahdo Gadir waxaa quusayaasha yaryar waxaana dhererkiisa lagu sheegay in uu gaarayo 29 mitir waxaana sidoo kale ku xiran baa la yiri qoryo dhuumo badan leh sida ay tilmaamayaan wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in Iran ay wali gacanta ku haysa 14 ilaa 20 quusayaasha noocaana kuwaasi oo intooda badan lagu daadguraya baa la yiri saldhigyada koonfureed gaar ahaan magaalada Bandar Abbas iyo nawaaxiga Hormuz. Qobarada militariga Mareykanka ayaa tilmaamaya in quusayaashan ay ku haboon tahay xaaladaha dagaalka aan sinnayn baa la yiri isla markaana gaar ahaan xiriirda ama carqaladaynta marinbiyoodka Hormuz oo kala ah marinada ugu muhiimsan ee caalamka. si kastaba qobarada waxa ay sheegayaan in quusayaashan aysan qatar weyn ku ahayn maraakiibta dagaalka ee waaweyn Mareykanku ay wataan sida ay hadalkooda u dhigeen oo ay tilmaamayaanba. dhinaca kale isla gobolka bariga dhexe ayaan ku jiraya ciidamada Israel ayaa caawa ku jira feejignaan ka bedelan kuwii maalmihii hore ay sameynayeen sida ay tilmaameen qiimeyn ay sameeyeen qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee nidaamka. arrintan ayaa waxay ka dambaysaa baa la leeyahay suurtagalnimada awaamiir ka soo bixi karaysa madaxweynaha dalka Mareykanka oo ka dhana dowladda Iran. si dadban ayaa warkaasi loo dhigaya laakiin haddii si mutaxan loo fasiro macnaheedu waxa suuragal baa la yiri saacadaha soo socda in ay muuqanayaan suurtagalnimada hanaan haddii aysan wax isbedelin dagaalka uu ku bilaaban karayo. wargeyska Israa'iiliga ah ee Dacood Ahronot ayaa sheegaya in Israa'iil ay ku jirto xaalad feejignaana iyo diyaargarow heer sare ah iyadoo si dhow ula socoto go'aanada la filayo in uu gaaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan siyaasadda Washington iyo Tehran. sida uu qoray mas'uuliyiin Israa'iili ah ayaa wali cadeyn baa la yiri jihada uu Trump qaadan doono taas oo keentay in Tel Aviv ay isku diyaariso dhowr suurtagalnimo ah oo ay ku jirto in dib loo bilaabo dagaal degdeg ah iyo howlgal military oo ka dhana wadanka Iran. warbixintu waxay sidoo kale xustay inuu jiro iskaashi dhow oo u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka iyo sidoo kale hay'adaha sirdoonka ee labada dal kuwaasi oo wadaagaya xogaha amni iyo waliba qiimeynta qataraha gobolka. dhinaca kale channelka 12aad ee Israa'iil ayaa soo xigtay sargaal sare oo sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso suurtagalnimada dagaal ay la gashay Iran oo socon kara baa la yiri maalmo ama toddobaadyo haddii xaaladdu ay sii xumaato. sargaalkaasi waxa uu sheegay in wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ay gaareen meel adag kadib wada xaajoodyada nuclearka oo dhinacyadu aanay wali si rasmi ah ugu hesheen sida ay hadalka u dhigayaan. marka arinta gobolka bariga dhexe aan ka soo kaxeeyo xiisadda iyo loolanka dowladaha waaweyn u dhaxeeya
waxa ay muujinaysaa suurtagalnimada Qatar iyo bilaabashada dagaal weyne iyadoo dagaaladan yaryar ay ififaalo u yihiin xaaladda isbedelaysa ee caalamka. madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheynayaa inuu booqasho ku gaaro wadanka Iran toddobaadyada fooda inagu soo haya xilli heshiiska nuclearka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Ruushka uu meesha ka baxay. labada dhinacna ay sameynayaan dardargelin xooggan oo dhinaca gantaalahooda ah. hase haatee su'aal ayaa soo baxaysa oo ku saabsan Beijing ma baajin kartaa dagaal weyne dunida ka dhaca. suuragal sama tahay in dhinacyadan hadda kala afkaarta ah ay meel midaysan isugu keento iyadoo dhinaca kale qudheeda doonaysa saameyn awoodeed oo ay caalamka ka hesho. warbaahinta Ruushka gaar ahaan wargeyska la yiraahdo Sargrad ayaa sheegay in xaaladda siyaasadda caalamiga ah ay si weyn ugu xiran tahay baaliri go'aanada saddexda hogaamiye ee waaweyn madaxweynaha Vladimir Putin ee Ruushka, madaxweyne Xi Jinping ee China iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. warbixintu waxay ku soo beegmaysaa xilli Trump uu soo gabagabeeyay booqasho rasmi ah uu ku tagay Beijing halka Putin la filayo in uu booqdo Shiinaha dhamaadka bishan isagoo loo fasiray baaliri dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo muujinaya doorka sii kordhaya ee Beijing ee siyaasadda dunida. mareegta Sargrad ee Ruushku waxay sidoo kale sheegtay in Shiinaha uu doonayo in uu isu muujiyo baaliri xarun siyaasadeed oo dhexdhexaadisa xiriirka u dhaxeeya Washington iyo Moscow isla markaana kor u qaadi karaysa awoodda dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo dunida oo wajahaysa qalalaase kale oo xooggan. warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in Moscow ay si dhow la socoto sida Washington ay uga falcelin karto baaliri haddii Ruushka uu ballaariyo istiraatiijiyadda difaaca ama cadaadis military oo ka dhasha dagaalka Ukraine. mareegtan Ruushyaanka ah waxay sidoo kale ka digtay suurtagalnimada xiisadda ay ku faafi karto meelo kale oo Yuruba gaar ahaan dalalka Baltiga iyadoo la xusayo tallaabo military oo xadidan oo ka dhana wadan yar oo ka tirsan NATO in ay dhalin karto jawaab adag oo Ruushka ah. warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in Ruushka uu u arka xabad joojinta Mareykanka uu riixayo Iran inay tahay mid wiiqaysa danihiisa isla markaana qaabka dhismaha amniga Yurub ay sidoo kale saameyn ku yeelan karto. dhinaca kale xaaladda gudaha Ukraine ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay mid aad daciif u ah lama soo oga sida dowladda Shiinuhu ay u soo gabagabayn karto dhinacyadan hadda ishaya iyo waliba sida ay isugu fasiri karayso wadan diblomaasiyad dhexdhexaada ciyaaraya xilligan. ugu dambeyntii war ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri 42 maalin oo kale oo dheeraada ayaa lagu daray xabad joojinta u dhaxaysa wadanka Lebanon iyo waliba nidaamka Israel. xilli xabad joojin aan jirin isla markaana dagaaladu ay sii socdeen ayay dowladda madaxweyne Coon waxa ay galaysaa heshiisyo aan la ogeyn mustaqbalkooda. ikhtiyaarta nala socota ee cawaysan wanaagsan ayaan idin leeyahay tabinta qaybtan iyo wararkii ugu dambeeyay caawa dhacdooyinka dunida falanqaynta siyaasadda iyo la fagurka diblomaasiyaddaba in cod baasantiin.